Farasaabka gobolka Maroodijeex Mudane Jaamac Xaaji Axmed ayaa maanta daafuray barnaamijka iskaashiga iyo horumarinta degmooyinka gobolka Maroodijeex. Munaasabadan oo habkeeda dhicitaan si heersare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada Laaskeel ee bariga magaalada Hargeysa. waxaana ka soo qayb galay dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Maroodijeex iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi. waxaana ugu horreyn hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha degmada Laaskeel Mustafa Ibrahim Jabiye, xogayaha dowladda hoose ee Hargeysa Axmed Yuunus Juxa, maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne. aad iyo aad bay farxad noogu tahay barnaamijka uu barasaabka gobolka Maroodijeex noo bilaabay ee ah horumarinta degmooyinka gobolka Maroodijeex oo uu hirgeliyay oo boorkiisana kana daba taagan yahay oo hirgeliyay barasaabku waa arrin lagu diirsado iskaashiga degmooyinka gobolka Maroodijeexna waxaan u maleynayaa inay tahay maalintii koobaad insha Allah waa tacab aad uga leeday tacabka inaynu halka ka sii qaadno mooyee inuu dib inooga noqdo waa ka taxadireynaa annagu loo kala ahaan waxaanu ballan qaadaynaa qaybteedana uu bixino laba qaybood labadaba qaybta halkan waxaan ku darsanay marka $2,000 qaybta labaadna meerka magacaabi doona waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaa barasaabka run ahaantii oo barasaab aad u qiimo badana annagana barasaabkeegiya waayo annagu degmada Hargeysa waxay hoos tagtaa waa gobolka xidhiidh wada shaqeyneed oo dhowna waan wada leenahay dhankooda iyaguna waxa munaasabada ka hadlay barasaabka gobolka Maroodijeex Mudane Jaamac Xaaji Axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Naasir Cumar Yare. waxaanu isla garanay shirkayga ugu dambeeyay degmooyinka in la sameeyo barnaamijka iskaashiga iyo horumarinta degmooyinka oo degmooyinku ay iskaashadaan oo waxyaabaha adeegga bulshada hadba waxa ugu muhiimsan sida rugaha booliiska meelaha caafimaadka waxyaabaha runtii daruuriga ah ee degmooyinka ay u baahan yihiin in la iska kaashado waxaan rajaynaynaa in arintani tusaale ay u noqoto degmooyinka Soomaaliland oo dhan waa markii ugu horeysay ee iskaashiga degmooyinka gobolka Maroodijeex ama gobolka mid Soomaaliland lagu dhawaaqo dhismaha maanta la dhisi doona markuu inoo dhameystirmo waxay marag cad u tahay degmooyinka goboladu ka kooban yihiin halkii xafiiltan iyo demarcation iyo kala xadeyn ay ku mashquuli lahaayeen hadday culays ka saaran inta ay iska kaashan karaan ay wax qaban karaan inay wax weyn qaran ahaan inoo tari doonto geesta kale barasaabka gobolka Maroodijeex iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxay degmada Laaskeel ka dhagax dhigaan isbitaal lagu talagalay in lagu daweeyo isla markaana lagula tacaalo dadka ku dhaawacma gaadiidka maraya wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo ay ka dhacaan shilalka ugu badani iyo dayrka saldhigga degmada Laaskeel. annaga oo fulinayna amarka ama waajibaadka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo in had iyo jeer baahiyaha asaasiga ah dadweynaha la gaarsiiyo ay tahay iyadoo culayska dawladda hoose Hargeysa saarana ogtihiin haddana waxaanu maanta go'aanka u gaadhnay mas'uuliyadda naga saaran nabadgelyada aawadeed waxaan dadweynaha ka codsanayaa ama wadayaasha gaadiidka ee laamidan mara inay aad yar socdaan mas'uuliyadda dadka ay sidaan mar walba ay ka taxadiraan imikana way noo tahay maanta inuu wasiir ku-xigeenka caafimaadku inoo dhagax dhigo cusbitaalka emergency-ga oo aynu ugu talagalay wadadan aynu joogno ee degmadan marta oo wada halbowle ah oo isku xidha caasimadda iyo dekedii dalkeena ugu weyneyd oo shilal badan ay ka dhacaan sida koda yaro oo kale waa meelaha shilalka ugu badan ay ka dhacaan qofka inta ama Berbera la gaarsiinayo ama Hargeysa la gaarsiinayo ayuu ama dhiig baxaya ama runtii wuxuu u baahan yahay kaalmaad marka runtii baahi jirta ayay fikradani ka dhalatay inaynu halkan ka sameeyno xarun caafimaad oo loogu sameeyo emergency-ga ama waxyaabaha degdega ah ee qofku u baahan yahay waa arrin aad iyo aad muhiim ah barnaamijkan runtii waxa kale oo aanu doonaynaa iyaguna inay qayb ka qaataan maayirka Berbera oo ah runtii maayir wax qabad badan oo aad iyo aad u firfircoon oo maadaama wadadan ay halbowlihii isku xidhayay ay tahay caasimadda iyo dekedda Berbera isaguna aanu rajaynayno cusbitaalkan runtii wax badan ka qaadan doono waxaan ku soo gabagabeynayaa isku tashi iyo isku tiirsanaan buu qaran ku taabagalaa celinayna wasaaradda horumarinta caafimaad ahaan diyaar baan u nahay section-kan emergency-ga ee maanta aynu halkan abuurayno oo qaranka oo dhan baahi weyn u qabo marka loo eego magaalada Dacarbudug waa xuduntii qaranka Soomaaliland bari iyo galbeed halkan uun ba iskaga xidha halkan uun ba qof kasta oo bari doonaya inuu gudbaana halkan Dacarbudug u maraya qof kasta oo galbeed doonaya inuu gudbaana laamiga dheer u maraya laamiga Dacarbudug waa run dooxyada ku yaala magaaladan iyo hareeraheedu dhibaato weyn bay qaran ahaan ugu hayaan laakiin maanta bariishadii hadii aan awoodi karayn oo kulli fursado kale oo dawladdu gacanta ku haysaa way jiraan
oo wadadii corridorkii iyana hadalhaynteedii hawsheedii gacanta lagu hayo oo laga yaabo in bridge-da ay naga daboosho waa rajaynaynaa laakiin inta awoodayna waxa weyn inaynu dhig joojin badan oo xoog badan inaynu diyaarsano horumarinta caafimaadku waxay ballan qaadaysaa sidii awalba adeegyada caafimaad ee degmada ay gacanta ugu haysay inaanu gacanta ku hayn doono markuu dhismuhu soo dhamaado hadii Ilaahay yiraahdo waa Ibraahim Cabdiraxmaan Ibraahim Joker telefishinka badda cas Hargeysa